halkaan aan ku suganahay waa deegaanka Jaaq Dhageyste maanta waxaa sadaqo soo gaarsiiyay ama biyo u shubay dad walaalahooda oo ku sugan qurbahaas oo ka damqaday dhibaatada haysa dadkan deegaanka dadka deegaankuna sida ay nooga warbixiyeen xaalad adag ayaa ka jirta deegaanka Cabdullaahi Xuseen oo ah dadka ka wakiilka ah dadkan sadaqadii u soo dhiibteen isaguna waxa uu soo gaarsiiyay sadaqadii lagu soo dhiibay inay dadkani ay soo gaarto biyahan maanta aan shubnay meesha lagu shubay horta sidii dad hay'ad ama maamul midna nomaysan dhiibin waxaan noo soo dhiibay oo dadkan u soo dhiibay abaaraysan oo meeshan tacluusta ku haysato dad walaalahooda oo ummad Soomaaliyeed oo u rabay sadaqo u niyooday ayagu midna haddana ma aysan dhihin telefishin iyo hadii la kuureeyay idaacadaha laga sii daayo oo hamaha lagu faano dadkaasi waxay u baxsadeen biyaha sadaqo marka waana aragtaan ariga abaarta haysata xoolaha dhammaan dadka inta waa ka wargudbinaynaa idinkuna waxa la rabaa dadkaas ilaahay dartiisa sadaqada ula baxeen waa sadaqo wax maaragtay sheeg ama injo ama hay'ada maahan dadkaas ay arkeen looga wargudbiyay dadkay ka daqnadeen markaas ay sadaqo ilaahay dartiis ku saabsan u soo dhiibteen waxa la idinka rabaa marka dadkaas inaad u duceysaan hadii ilaahay wuxuu dhiibay ayagana waa ku dadaali doonaan inay mataqaanaa soo celiyaan iyo wixii karaamkooda ay ka qaataan abaarta bismillaah alxamdulillaah waxaan leenahay dadkaas ilaahay maaragtay muraadkooda Allah sahlo deeqoodan Allah waasiciyo hadii aan dadka maaragtay meesha dhibaatada iyo maaragtay deegaanka aan ka hadlo dadkan waad u jeedaan hadda waa aragtaan dad iyo dunyo waa la tabaalaysan yahay ilaahay baa maaragtay wax la kala gaarahaya dad waxaan nahay beele dana dugtilay ah oo dad cid culus ah sidaas darteed biyo ama ha ahaato ama baad ha ahaato dad iyo deewa intaba maaragtay waa la waxaysan yahay dadka waxa iska jira dad maaragtay hooyaadka oo si ku yahay oo maaragtay wixii ay quudan lahaayeen aan haysan dad maxay waa la isku dhex jiraa waa la si kala liitaa marka dadkaas waa u ducaynaynaa ilaahay maaragtay khayr badan Allah siiyaan leenahay waxaana maaragtay ilaahay maaragtay inuu maaragtay wax ka badan ugu bedelo waxay la baxaan bismillaah alxamdulillaah والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين وبعد أولا إلهي يا مهد إسكالي ولي وحان ودنا جارسينتي أمضى مسلمين تاه الديان كعداد حسمان السي ولا لها إني مسلم كأها وحيسو الديبين وأها ديال لكوري صدقها ساكي وحان تقنين جولة جاق دقيستو وأن كشف البيو حتى أنا وحن جولة ديان كقرب من إن شاء الله ودي لهي إنه مركنا الله وضعنا ماشي اللي إذا جاق دقيستو لكن إمين كوحن تاغن هاي قربان لي قربان أقدك جوغا وحن أوكيان بيجي يلو كوكسو ديبي وحن أقول نميد وحيابات تربضان سيدا أري حاسو جيداها كدام بحنا سيدا جيلي أسوى ربا باسن لأن بدنا وحن صومنا يلان بعو مقاعد سوسو فوقيسي وضدكم متقنا حولو أي حنكر جوبيان يكون دقيقين مركا هدي اللي يقول وحان ويجي نلوسو بيجي هذا يدا وشويسا لكن وشويسا ديان كورد ما الله بيها إسكالي سيدنا الكوسو كاسيني هذا إن شاء الله تعالى وحن الله بطل هاجر waxaan joognaa deegaankii labaad deegaankan waxa lagu magacaabaa Qurdubale horay waxa u tagnay subaxnimadii hore saakay deegaan la yiraahdo Jaaq Dhageyste waxaana wadnaa sadaqo ay la bixeen dad walaalaheen ay ku sugan qurbaha Qurdubale biyo ayaa la geeyay Jaaq Dhageyste biyo ayaa la geeyay safarkeena waa noo socon hadii ay yiraahdo sida Cabdullaahi Xuseen markii la noo sheegay إن شاء الله أمر لبعض يمر سدحات والجيم دونا صدقات يا ضدك ولا ذا كسلان بس هو عن ربعنا نراهضو ضدك بجوكته ولا عليه هنا الدجان كان كسوجي يكون الصوماليات الصوماليين إن أي ضدك ولا ذا هو دبعتيسا عبارة
quudanaya waxay cunaan inta waayeen dhulkana waa aragtaan waa kuwaas oo qallalan geelihii waa kuwa halkaa dhooban oo waxa waaye abaarta ay ka muuqato xitaa dameerihii ay dadku reera guuraaga ay ku soo doonayeen biyaha ayaa aad u liita dalku xaaladooda ku maraya maamul baan dadkan wuxuu qaban hay'ad baan wuxuu qaban marka waxaan leenahay dadka walaalaheena qurbaha jooga walaalayaal dadkii xoolii waa ka laadeen waxaa loo baahan yahay maanta haddaan la iscaawin waxa waaye xilli kaloo la iscaawinayahay ma jiro marka waxaan kusoo gabagabeynayaa insha allah aniguna safarkayga waa wadi doonaa idinkuna bal wixii aad ugu tala gashaan